maxaa dhacay 1907 laga yaabaa inaad aragtay ama maqashay daawaday qof meelaha kaga dhawaaqaya maxay wadamada gaaladu u hormareen kuwa muslimiintuna u dib dhaceen ama ay wax caadiyaba noqotay wadamada hormaray iyo kuwa liita. haddaba aynu maanta sheegno xogo toolmoon oo tibaaxaya sida ay wax u dhaceen. in badan oo barofesoradeenna aqoon-yahankeenna indheergaradkeenna iyo siyaasiyiinteennina aanay war iyo wacaalba ka hayn ama aanay akhriinba ama haba yaraatee aanay ogeynba. heshiiskii Bannerman, heshiiskii ugu halista badnaa, heshiiskii ay gumaystayaashu dejiyeen si ay u ilaaliyaan cid kasta oo quwad yeelan karta adduunkana kula loolami karta. cadowgii koowaad ee adduunka u soo muuqday markii qiimaynta ay sameeyeen wuxuu noqday guud ahaan caalamka islaamka, gaar ahaanna caalamka carbeed. marka la leeyahay caalamka carbeed, adigu carabta ama necbow ama jeclow oo waa mid adiga ku taale. caalami ahaan Soomaaliya waxay ka mid tahay caalamka carbeed. heshiiskaasina wuxuu si gaar ah u taabanayaa caalamka carbeed, innaguna aynu ka mid nahay, weliba innagoo ah Soomaali. haddaba heshiiskaasi waxa uu dhigayaa sidii caalamka islaamka gundahooga loogu jeedin lahaa si aanay horeba u eegin. xisbigii muxaafidka ahaa ee Ingiriisku 1905 wuxuu baaq u diray oo u yeedhay dowladihii gumaysiga ee kala ahaa isla Ingiriiska, Faransiiska, Holland, Belgium, Spain iyo Talyaaniga. isla ujeedka kulankaasina waxa uu daaranaa in la galo shir caalami ah oo gumaysinimadooda u danaynaya dowladaha reer galbeedka. marka koowaad waxa uu dhigayaa heshiisku sidii dowladaha reer galbeedku ay caalamka kaga wada sarreyn lahaayeen. marka labaadna waxa uu dhigayaa sidii caalamka islaamka ay jilbaha dhulka ugu xidhi lahaayeen. qodobka saddexaad, marka ay caalamka carbeed cagta madaxa ka saaraan oo ay gaadhsiiyaan ama ka ilaaliyaan in aanay kor eegi karin heer ay gaadhsiiyaan wanka weyne kor ma eegi karo, jeeroo la gowraco oo indhihiisu cirka ma qabtaan. sidii uu heshiiskaasi u socday ee kolba dhan wax looga qiimaynayay waxaa la soo gaadhay 1907 waxaana soo ifaxay heshiiska ay gaadheen iyo qodobada ay isla meel dhigeen kuna asteeyeen in heshiiska iyo qodobadaasiba sir ay u ahaadaan iyaga si ay masaaliixdooda ugu meel mariyaan. waxaana loo bixiyey heshiiska Bannerman oo ay ugu magac dareen ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee waqtigaa joogay Henry Cabell Bannerman ee ka dambeeyay heshiiska iyo kulanka la wada yeeshay. wuxuuna sheegay ra'iisul wasaaraha Ingiriisku in uu bilaabmay saansaankii hoos u dhacoogu. waqtiga maanta aan barnaamijkan duubayo 120 sano ka hor ayay reer Yurub dareemeen ama reer galbeedku dareemeen in uu bilaabmay saansaankii hoos u dhacoogu. lagama maarmaanna ay tahay inay isdaba qabtaan inta xeedho iyo fundaal aanay kala dhicin. wuxuu yidhi ra'iisul wasaarahaasi isagoo hadalkiisa sii wata, waynu ognahay innaga oo reer Yuruba in ay dagaalo iyo cadaawadba ani ina dhex taallo oo aynaan isarki karin, laakiin ma doonaysaan reer Yurubow in aynu fiiqaa sare ee adduunka aan ka gaadhnay aan ku sii joogno. intay naga dhaxaysana ma wada eeganaa, mise waxaad doonaysaan in aan mar walba hoos u sii dhacno wadamo kalena ay mar walba kor u soo kacaan? maye waxay yidhaahdeen waxa aan doonanaa kana wada shaqaynaynaa danteenna iyo in aynu sii ilaashanno haysannana booskaa horumarka ee adduunka aynu ka gaadhnay iyo in aanay soo bixin cid awoodda inagula loolanta. markaana waxaa la qaybiyey khariiradda caalamka carbeed oo ergi kasta ama danjire kasta oo dowladaha ka socday la hordhigay. markaasuu yidhi ninka Ingiriis isagoo hadalkiisa sii wata, khariiradda iyo deegaanadaasi waa sirta awooddeenna ama taagdarradeenna. waa halka awoodda aynu ku yeelanayno ama daciifka liita aynu ku noqonayno. wuxuu yidhi deegaankaasi waa mid liita, imika taag daran, aan isku xidhnayn, wax walbana laga samayn karo, jaahiliin ah, waxyaabo liitana isku laynaya, heerkooga aqooneedna uu hooseeyo, balse waxay haystaan wax kasta. hadda hadalkaa u fiirso, qayb ka mid maaha ee wax kasta oo khayraad ah oo ummada heer ku gaadhi karto oo inta dhulka ay kaga kacdo baarka sare ay ku gaadho. waxay haystaan waxyaabo badan oo aynaan inagu haysan haddii aynu reer galbeed nahay. in yar oo iyaga ka mida mooyaane hal diin ayay wada haystaan, halka inagu ka reer galbeed ahaan diimo badan oo iscolaadinaya aynu kala haysanno. hal luuqad oo ay isku fahmayaanna way leeyihiin, oo hadduu mid iyaga ka midii ka yimaad deegaan kale wuxuu meel kasta oo dhexdooda ugu noolaanayaa sidii deegaankiisii uu ka yimid. waa deegaan waqooyigiisu Yurub saaran yahay, koonfurtana Afrika geeskeega ka haysta, barina Hindiya iyo Aasiya ka saaran. waa deegaan
ay yaalaan wax kasta oo macdanaha qaydhiin ahi agabka qaydhiin ee warshadaheena wax soo saarku ka reer galbeed ahaan ay ku tiirsan yihiinna iyaga ayaa haya. Waa deegaan awooda in uu caalamkoo dhanba cunaha qabto oo kala jaro hadday xidhaan marinka baabalmandab, Suways, Hormuz iyo Jamlu Daariq. deegaanka aynu waxaa oo dhan ku soo xusnay ee la yidhaa caalamka carbeed haddaan ka faa'iidaysan weyno inta ay taagdarrada ku sugan yihiin, haddii ay soo hinqadaan oo jiritaan dhab ah ay yeeshaan, caalamka meel aynu cag dhignay la ina arki maayo. waxa qudha ee ay rabaan ama ay u baahan yihiinna waa keliya inay helaan, hadda hadalkaa u fiirso, waa keliya inay helaan hoggaamiye wanaagsan. halkan marka uu hadalka marinayo waxaan xasuustay weedhii Naum Chomsky ee ahayd ma jira dal faqiir ah ee waxaa jira maamul ama hoggaan mas'uul ku fashilmay inuu khayraadka dalkiisa wax uga qabto dadkiisa. waxa uu yidhi ninka Ingiriiska isagoo hadalkiisa sii wata, marka ay ummadaasi hoggaan wanaagsan helaan way soo hinqanayaan oo way haystaan wax kasta oo horumar ka taageeraya. markaasay yidhaahdeen danjirayaashii dalalka reer galbeedku maxaynu samaynaa? waa kafadda keliya ee inala jaraysa miisaanka, dhinacoogana ay wax waliba noqonayaan haddii ay saaxadda soo galaan oo mar uun ay soo hinqadaan. waxay lafaguraanba oo ay kala xog qaataanba waxa ay noqdeen ama soo saareen qodobadan iyaga u muhiimka ah. waxa ay yidhaahdeen waa in ummaddan lagu dhex beero jidh qariib ah oo dad iyaga ka duwan ah, oon diin ahaan, dhaqan ahaan, fikir ahaan, taariikh ahaan si walba iyaga uga gedisan, oo barigooga iyo galbeedkooga ama eeshiyadooda iyo afrikadooda halka ay iska galayaan ee ay ku kala qaybsamayaan aynu ku abuuro, si dagaalkooga, doodooda iyo danayntoodaasiba ciddaa aynu ku dhex beerray ugu mashquusho oo innaga aanay inoo soo gaadhin. waa in aynu halkaa ku abuuraa. wakhtigaa waddamada reer galbeedku may sheegin cadkaa qariibkii ciddaa uu noqonayo iyo cidda lagu abuuraayo meeshaa lama magacaabin ee caalamka islaamka lagaga jeedinayo Yurub. hase ahaatee yuhuudda oo dibad wareeg ahayd wakhtigaa ayaa tidhi cidda halkaa lagu beerayo annaga naga dhiga. arrinkaa way aqbaleen oo wax kasta oo ay yuhuud u baahnaydna way la garab istaageen. heerow gaadhay arrinku in jabka Israa'iil noqdo jabka reer galbeedka, taasoo sababtay in wax walba la duldhiga Israa'iil oo lagu garab istaago. ilaan caalamka islaamka oo dhan baa la iskaga mashquulinayaa. 3 ujeeddo ayay Israa'iil u fulinaysaa reer galbeedka. qodobka koowaad waa inay Israa'iil kala qaybiso caalamka islaamka. qodobka labaad waa in ay reer galbeedka iyaga u hoggaansanto. qodobka saddexaad oo ah ka ugu muhiimsan waa inuu deegaanka caalamka islaamka ee lagu dhex beeray wax awood la yidhaa haba yaraatee inuu dal islaami yeesho ay Israa'iil ka ilaaliso. oo marka dal awood yeesho muslimihi, dalkaasi awoodda yeeshay waxau gaaraya xasilooni iyo horumar. oo hadday waddamada islaamku hormaraan Yurub ayay ka go'an tahay. markaa waa inay si walba oo ay isku hortaagi karaan ama u joojin karaan in waddan caalamka islaamka ka mid iyo madaxa soo qaado ay ka ilaaliyaan ugana dhaartaan haba yaraatee soohodinta ay u sameeyeen ay waddamada islaamku ka gudbaan. waxay isla garteen waddamada reer galbeedku oo tale ku go'aamiyeen inay guud ahaan caalamka islaamka ka dheereeyaan, gaar ahaanna ummadda carbeed ka dheereeyaan in ay soo xakaakumaan oo hal waddan oo iyaga ka midi madaxa soo qaado. oo heerka baaba'ah ee ay yihiin ay ku sii hayaan, kalana jarjaraan oo kooxo iyo deegaano iyo wax la halmaala ka dhigaan, una soo magacaabaan hadba qaar liita, madhan, jaahiliin ah oo marin habowsan oo meel ay ka socdaan iyo meel ay u socdaan aan midna kala garanayn. iyagu isdilaya oo isku dilaya wax la isku dilaba wax aan ahayn. midnimada iyo wax dad isku soo dhaweynayana ka ilaalino si aanay waxba u ogaanin dadkaasi. kalana dagaalana aqoon-yahanka ugu ee adduunku isku dhaafay ee tiknoolajiyadda iyo wixii la mid ah in ay bartaan oo aqoon-yahano ay ku noqdaan. aan ka ilaalino kuwa si uun cilmiyada u bartana aynu dalalkooga soo dhaafino oo aynu keenno dalalkeenna si innaga uu inoogu adeego. waa in si walba dowladaha la iskaga hor keeno oo laga wada dhigo doqontii 12 indhood lahayd ee 11 ka mid ah walaalkeed ku arkaysay, midka soo hadhayna cadowgeega ku arkaysay. waa in deegaanada caalamka islaamka oo dhan laga dhigo kuwa mar walba qalalaasi ka jiro. laga yaabaa markaad intan maqashay daawade inaad fahantay dagaalada adduunka ka dhaca ama adduunka ka socda in ay 95% yihiin geyiga ay ka dhacaan dhulka caalamka islaamka ee qalalaasuhu ka jira. qodobka ugu muhiimsan oo ah marka Israa'iil laga reebo
oo iyadu sidii ay u idmadeen reer galbeedku wax u wada waa inay wadamada islaamka mid walba keensadaan kuwa hogaamiyayaasha aynu ku sheegno waa in ay mid walba iyagu keensadaan oo wixii ay yiraahdaan iyo halkii tag ay yiraahdaan aan midna eri ka soo celinaynin ama oranaynin halka ay kolba tag yiraahdaana tagaya oo ay laf loo tuura ah qodobkan kolka aad aragtay ama maqashay laga yaabaa taawada inaad wuxuun ka ogaatay sababta aanay madaxda dalalka islaamka joogtaa uga shaqaynin danta ummadda ay madaxda u yihiin iyo danta dalka midna halka marka aynu inaha kaga koobsano heshiiska maadaama xogta ay tahay mid aan heshiiska si rasmi ah loo wada helin intan aynu tibaaxnayna tahay mid ka soo fakatay dawladihii galay heshiiska waxa jira kuwa isku daya in ay beeniyaan iyaga oo u cuskanaya qodobka ah heshiiskaasi xogtiisa oo dhammaystiran lama hayo balse taasi laba qodobba fashil ayay u noqonaysaa oo dalalka heshiiskan galay kuma oranayaan heshiiska ayaanu anagu haddii aanu reer galbeed nahay galay si aanu islaamka ugu shirqoolo uguna tumanno cidina cid kale sirteeda uma sheegto dalalka heshiiskan galayna kuma oranayaan dalalka islaamka ayaanu heshiiska u galay midda labaad cidna waxa ay danteeda ka dhex aragto iyo ficilka ay samaynayso iyo falka cid ay la maagan tahay ama dhagarta ay u qoolayso dee inay u sheegtaa waxaan caqliga basharka aadamaha suuragalka ahayn ta kalena waxaynu ka aragnaa waaqica taagan oo si cad ayay qodobada heshiiska lagu galay iyo mu'aamarada xilliga la dhigay inuu hor yaalaan heshiiskani maaha ka kaliya ee caalamka islaam lagu dhagray laguna kala qaybiyay lagu hagardaameeyay laguna haaraamay ee heshiisyo kale oo badan ayuu hordhac u ahaa si kooban mu'aamaradaha iyo masiibooyinka mushrikiintu ay muslimiinta la maagan yihiin way badan yihiin billaahi tawfiiq